عليكم حوالي عايش تاجرة رجل مرة ما في حاجة فينا ذاتي ورجع أسبوع ولا سنة وحي ما هتعلنا شهادة الصوت بتاعي aad baan loogu mahadceliyay dadkii shaqada qabtay raggii halka ka hadlay dadka hadlay oo dhan baa ka hadlay dadkii xafladda noo daadiinayana waa ka hadlay waxaan marka jeclaan lahaa wax yar inaa idinkoo raalli qalbigiina dhagihiisa dhabayaamahaysaan waana soo koobaya xafladda dadku waxaan moodaa fanaaniin badan baa u jooga inaan meesha ka cararno qolada iyadan marka waxaan rabnaa si aan u degdegnay dhagaysta wax yar maydinla tahay waxay dhagaysta marka waa soo koobaya anugu horta waxaanu isugu nimcaa waxaa weeye laba arrimood waa mid dad ninbaa ereygaas waxaan u leeyahay waxaa weeye heesaha soomaalida waan akhriyaa lyricska waan dhegaystaa marka nin fanaaniinta cusub aan aqoon baa akhriya lyricskiisa marka wuxuu leeyahay haddii aan guyaal badan ku gumownay dibadaha haddii guulan lagu simo waa inaan ka guurnaa ya marka wuxuu tilmaamay intaas oo degmo oo Soomaaliya oo dhan buu degmo u soo qaaday degmo heblo waa inaan u guurnaa buu leeyahay markii dambe wuxuu leeyahay soo gabagabayntana geesaha nugaal iyo garowaan degaynaa marka caawa garow waa sheekadeedu ku ekaanaysa xaggi xagga u dhaafay horta hambaliyo 23 guurada dowladda Puntland si fiican ay isu dhageystaan hambaliyo lix madaxweyne ayay soo maray Puntland isku bedelay lix madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf laga soo bilaabay Cabdullaahi Yuusuf ama Cabdi Xaashi Cadde Cabdirahmaan Dr. Farole Dr. Cabdiwali Dr. Saciid Cabdullaahi Dali lix madaxweyne ay soo maray صدق يا الله بعتلك على الصبر تعرف وهي معمول يقبر انت صومر متشر دولة الصومالية حتى انت صومر وحلو قفانو او صومالي قفانتو ما هم بوين لك ليه وواح صومالي اورانا قفاني كرتو واي وقل صومالية ودل صومالية ودل كيني صومالي وينت اللي عمك اللي سوحا اللي سيعرو كلبت بادنو أنا ugana badbaadno dadkeena Soomaalina aanu raadino aan dhisno wax aan ku kala badnaano sharci in sababna kala celiyo soo wax lagu farxama soo wax qayb badan ma sha Allah dhahay idinku kulli inuu ducaynahay Allah uu qabul tahay waxaan rabay meelo badan inaad taataabto laakiin qoliyaha ugu dhagay waxay yiraahdeen aan ugu dheeraan adeero ya rabbi ilaahay laakiin waxaan leeyahay saddex iyo labaatan guuradii Puntland maanta hoggaanka jooga meesha uu ka soo ambaqaaday iyo meesha uu sii wado iyo mid walba maalin soo qabanayo horumar ka sii wanaagsan kiiba noo muuqanayo hiddidiila noo muuqanayo maanta meesha aan marayno dowlada Afrikaan oo badan wadamo badan Afrikaan ah baa xaqiiqadii aan gaarsiisnay xaqiiqadii aan Puntland gaari karin وأنا سيرا اليوم بنشوف نال لايت شغالة يا ملا سيرا اليوم traffic light ملا can you believe that capital Freetown Puntland ما أنت واحد وجود الأيو Soomaalina أي وهم بليشو أيضا الصومالي أي ترى إله شو جالسي وضد كأني وضد كأني يبعتوا ماشي كتشوف تقول جاي وجبنا هيو كلاوي يجروا حلنا الله شو جالسي ماشاس وعليهم وأهلكم وضدكم إن بدأ سيان كل ذا الهروب والصور. سو إذا ما هذا هو ذا الدعاء لنا ما في النور. أنت اللي على كان وين بكسو استاجي أفضل دوا وقف أيدي سنة يا وين كواحد تمايا أول مشرع إنجنير كاو ما بحيقول إنجنير كمشرع شيء كذا ما عن ستة كونسول ما عن ستة ريبريزنتيف وبورفيكيشن وإدكاشك تعلمت إني عرفت إني ماشي في هذه هو سيدو نوشيا
أنا أقول عبد القادر عن أبيه مرة بين برته ويدي أنا برته مرة غير كي من أنا برته مرة ما أنت اللي شيء جبان وحنا وويل سومالي أنا وويل كده وتاجر يوم بيسوي ما نقول كده لكن يقول أنا الإسلام ربنا وويل كني عروت الرماد اللي هي هو كلام أنت سو تجنا وإنه برنامج وأنا نسيت وقتنا وأنا نشوف كنا قرنا وأنا ذلك وفيا أنا مرتين مني وكل سنة هذه أنا ذلك أنا وشغلي سودو هذا بس وهاي أدمارتي كالهرين كل جود جمع ستة كل شغالة كل بني كل العلنية والأوديو وحنا قبلنا هنا هذا أمها سنتها هذا أمها سنتها runtii waxaad moodaa Soomaaliya dhan baa caawjeedo u jeeda lama kala harin waa loo dhan yahay xafladan aad u mahadsantiin haatan waxaan ku soo dhaweynaa Ismaaciil si qofka xiga inoo yeeray fanaanka insha Allah fanaanka waa galeena waxa rabinaan hal qof runtii xuso walaalkay Yuusuf Xaaji jeclana wax yar inuu istaago insha Allah Yuusuf Xaaji runtii waa musharax u tartamaya oo district 9 oo Minneapolis Minnesota City Council buu olole ugu jira xalay buu xaflad runtii weyn loogu qabtay Columbus Ohio marka runtii qof aad qaan loogu ah reer Minneapolis أديات تجارة. صدوا يوسف صدوا. قال هذا واحد. إن كان سعيد يوسف حاجي وولد الشيء سنتور محمد يوسف حاجي سنتور كي هذا بيجري الله ما حدثه على حضرتك وكولها كشيء وكعلنا يا عاو dadku ka badan yahay inta dad badan baa jooga caaw waxaan rabaa taariikhda aan dhageysataa anigu Yuusuf Xaaji waa la sheekaystay Maxamuud General Maxamuud waa la sheekaystay waxaan magac baan rabaa inaan idin bixiyo gift from the God baa idin bixiyay baa ilaahay baa nakiin siiyay baa xaqiiqadii waa ku idin waxaan u yiri sidaas dadkeenu markay soo qaxeen Soomaali iyagoo kala soocin bay waxay yiraahdeen halkaan hadday yimaadaan waan dejino kuwii xaggana islayn mayaan iyaguna islayn mayaan meel lagu nastay noqotay Kenya oo qaxooti lagu noqday oo la fariistay oo salka la dhigay oo xoolo laga helay maanta Kenya dhaqaalaheedii bay maamulaa walaalkiis weeye Senator Maxamed Yuusuf Xaaji ninkan wuxuu u sharcay district 9 ward ku yaala Minnesota qof kasto inaga mida oo ward 9 families dadkeen nibad degan hala hadlo hala taageero dagaalaha la siiyo annaguna xal qabu aan dagaalanay waxbaan qabanay ilaa shalay ilaa maalintu yimid haddana jeebka gacmaha la gabdhoon dahabka qaar aan noo gadaan salaamu calaykum جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا هذا ما استفدت ان شاء الله marka walaashan hudra wax ku wareejinaya insha Allah walaashan Kawthar insha Allah inuu walaalkeen asagana daqiiqadii hadalka dadku soo mahad celiyo soo dhaw insha Allah Assalamu alaykum reer Ohio shalay baa Soomaali ku hadlay aad baan iga qosin lahaa laakiin English baan ku hadlayaa maanta yes okay man 1 minute leeyahay and thank you very much I'm here to support and also I'm a big supporter of Puntland have always been all my life and your history is long history history maaha history dheer baa leedihiin taariikh dheer baa leedihiin kulligayna taariikh dheer baan leenahay taasna waa muhiim waa inaan isku mid aan noqono insha Allah hal meel aan u socono waa soo baahannahay ehel baan nahay waa isla dhalanay amaanka inaan badino insha Allah taageer Soomaalina taageertiin I want you guys to support all Somali insha Allah candidates who are running here Yarbachira hada Ohio Sharaka iyo also in Minneapolis so I don't have time I really want to you are an inspiration Batin you're a big inspiration for all of us it's something we all want to be and I hope that every person or magac Soomaaliyed leh inuu nugu tayo insha Allah mahadsanid thank you very much